بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وعن مال وناكسن الداوديال ومالنما حدا تاريخنا ay tahay kowda bisha Maaj sanada 2026 waafaqsan 12 bisha Ramadaan sanada 1447 ee Hijriyada kusoo dhawaada barnaamijka wararka maanta oo idinkugu soo gudbin doono wararkii dhacdooyinkii ugu dambeeyay dunida ka dhacay saacadihii aynu soo dhaafnay ilaa iyo daqiiqadan qodobada aan maanta barnaamijka idinkugu haynana waxaa ka mid ah waa Iiraan oo lagu dhawaaqay in calanka madow ee colaadda iyo murugada ah in laga taagay oogada sare ee xarun diimeedka Imaam Reza ee magaalada Mashhad ee Shiicada u barakeysan. dhinaca kale Iiraan ayaa duqeynta ay ka wado bariga dhexe waxa ay ku dartay dalka Cumaan halkaasi oo dekad la beegsaday. xeebaha Cumaan sidoo kale waxaa lagu weeraray markab nooca shidaalka qaada ah. gantaalada Iiraan ayaa sidii roobkii ugu socda Israa'iil waxaa la xaqiijiyay in ku dhawaad 500 oo qof oo dhaawac uu soo gaaray dhimasho ayaa sidoo kale la xaqiijiyay. Imaaraadka Carabta oo bidaamiyay suurtagalnimada inay ku biiraan dagaalka halka Britain ay sheegtay in laba gantaal ay ku soo dhaceen agagaarka saldhig ay ku leeyihiin jasiiradda Khubrus. Putin oo dilka Ayatollah Ali Khamenei ku sifeeyay dambi si ula kac ah loo geystay. saraakiisha Iiraan iyo Israa'iil oo hanjabaado culus hawada isu marinaya iyadoo duqeymo culus lagu qaaday Dahraan iyo magaalooyinka kale ee Iiraan. dhammaan qodobadan iyo weliba warar kale oo faahfaahsan iyo wixii warar ee degdeg ah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka maanta. soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto una hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno. haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. maanta waxaynu ku bilaabaynaa Iiraan kadib dilkii hogaamiyihii sare Ayatollah Ali Khamenei waxay wadaa in gantaalada ay u qaybinayso ilaa iyo 7 wadan oo ku yaala gobolka bariga dhexe. duqeymihii ugu dambeeyay waxaa lagu qaaday wadanka Cumaan. xagga Israa'iil waxaa lagu soo waramayaa duqeymaha in sida roobka ay ugu socdaan. militariga Iiraan ayaa goordhow xaqiijiyay in markii ugu horeysay colaadan gantaalka loo yaqaan Fatah ee guuxiisa ka dheereeya in ka badan 10 goor lagu weeraray gudaha Israa'iil. waxaana ka mid ah meelaha la beegsaday xarumo ciidan iyo sidoo kale kuwa muhiimka ah ee dhanka istiraatiijiyadda. qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ayaa soo kordhaya. adeega gaadiidka gurmadka degdega ah ee Israa'iil ayaa xaqiijiyay in 456 qof ay ku dhaawacmeen weeraradii ugu dambeeyay tan iyo markii weerarku uu bilowday. laakiin war degdeg ah oo hadda soo dhacay intaynu barnaamijka ku jirnay telefishinka Kanal 12 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa xaqiijiyay in gantaal ku dhacay deegaanka Beit Shemesh lagu soo waramayo in uu dhaliyay dhimasho iyo dhaawac ilaa hadda 5 qof ayaa la xaqiijiyay dhimashadooda. dhanka Kuwait 32 qof ayaa ilaa hadda la xaqiijiyay dhaawaca. dhanka Imaaraadka Carabta waxaa lagu soo waramayaa dhimashada in la xaqiijiyay 3 qof kuwaas oo kala dhashay Pakistan, Nepal iyo Bangladesh. sidoo kale wararka waxaa ka mid ah in xilligan la sheegayo dhanka Israa'iil duqeymo inay ku socdaan. intaynu barnaamijka ku jirnana wixii soo kordha waan idin socodsiin doonaa. geesta kalena warbaahinta Iiraan ayaa sheegtay in markab nooca shidaalka qaada ah uu diiday digniinaha ciidamada ilaalada kacaanka ee IRGC oo marinka Hormuz ee la beegsaday iyadoo la xusay in markabkii uu bilaabay inuu quuso kadib markii uu soo gaaray burbur xoogan. sidoo kale wakaalada wararka ee Reuters ayaa waxay warisay in qiyaastii 150 maraakiib shidaal ah ay ku sugan yihiin biyaha khaliijka si ay uga fogaadaan marinka Hormuz. isla war arrimahan la xiriira shirkadda maraakiibta ee Hapag Lloyd ayaa ku dhawaaqday hakinta dhammaan maraakiibteeda mari jiray marinka Hormuz ilaa iyo ogeysiis dambe sabab la xiriira xaaladan dagaal ee bariga dhexe ka aloosan. tilaabadaasi oo la aaminsan yahay inay sare u qaadi doonto sicirka shidaalka caalamka. isla wararkan wakaaladda wararka Faris ee laga leeyahay Iiraan ayaa waxaa laga soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan
golaha tala bixinta qaranka Iiraan oo lagu magacaabo Mohsin Rezaei in maraakiibta Mareykanka mar dambe aan loo ogolaan doonin inay soo galaan biyaha khaliijka. isla wararka dhanka Iiraan madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa sheegay in dilka hogaamiyaha sare ee Iiraan uu yahay ku dhawaaqis dagaal oo cad oo ka dhan ah muslimiinta gaar ahaan shiicada dunida waxaana intaasi uu ku daray in argoosiga dilkaasi uu yahay waajib iyo xaq sharci ah oo saaran Iiraan sidaasi si la mid ah wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sheegtay in falka dambiyeedka iyo cawaaqibkiisu aysan ku ekaan doonin gobolka balse ay gaari doonaan adduunka oo dhan dhinaca kale xogayaha golaha sare ee amniga qaranka Iiraan Ali Ladrani ayaa sheegay in Iiraan ay Mareykanka iyo Israa'iil ku dhufan doonto awood aan horey loo tijaabin. wararka Iiraan aynu ku sii soconnay wakaaladda wararka ee Tasnim ayaa sheegtay in la dilay madaxii xarunta sirdoonka booliiska Iiraan General Kholomariza Rezaian kadib weerar dhacay Sabtidii goorsii horreysay oo maanta ah telefishinka Iiraan ayaa xaqiijiyay dhimashada taliyihii guud ee ciidamada qalabka sida ee Iiraan General Abdurrahim Mousavi waxaa kaloo la sheegay in lagu dilay weeraradii Mareykanka iyo Israa'iil ay la beegsadeen shir u lahaa golaha difaaca Iiraan. markana ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah ayaa sheegay in difaacyadooda cirka ay soo rideen tiro diyaaradaha droonka ah oo Mareykanku leeyahay kuna soo rideen koonfurta dalka iyagoo intaasi ku daray in hawada dalka ay noqotay mid gebi ahaanba khatar ku ah diyaaradaha cadowga dhanka Israa'iil wasiirka difaaca Israa'iil Katz ayaa sheegay in howlgalka loogu magacdaray guuxa libaaxa uu sii socon doono ilaa laga gaaro dhammaan yoolalka laga isagoo ku tilmaamay dilka Khamenei inuu yahay isbedel muhiim ah oo laga rajeynayo inuu horseedo in shacabka Iiraan ay ridaan gabi ahaanba nidaamka. Israel Katz ayaa sheegay in Israa'iil ay abaabuli doonto duulimaadyo military oo joogto ah si loo fuliyo weeraro xoogan oo ka dhan ah bartilmaameedyo ku yaala gudaha Tehran isla markaana ay wadaan duqeymo culus oo lagu beegsanayo xarumaha nidaamka iyo hay'adaha amniga. taliyaha ciidamada Israa'iil Hiyal Samir ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in dagaalku uusan fududaan doonin isla markaana uu ku sii fidi karo furimo kale oo hor leh. xagga iyo wararka Mareykanka ka imaanaya haddii aynu eegno safaaradda Mareykanka ee Urdun ayaa ugu baaqday shaqaalaheeda inay ka fogaadaan xarunta safaaradda haddii la beegsado isla markaasna muwaadiniinta Mareykanka ayaa looga digay in ay taxadar muujiyaan oo ay ka fogaadaan dhismaha safaaradda. safaaradda Mareykanka ee Bahrain ayaa sidoo kale kula talisay muwaadiniinteeda inay ka fogaadaan hoteelada magaalada Manama ee caasimadda waddanka Bahrain. geesta kale warbaahinta Pakistan ayaa soo warinaysa inay jiraan dhimasho iyo dhaawac kadib markii dibadbaxayaal ka caraysan dilka hogaamiyihii Iiraan ay weerareen qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada Karachi ee dalka Pakistan. wareeriye caafimaad ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ku dhawaad 10 dibadbaxayaal ah la dilay kadib markay isku dhaceen booliiska. xaalad cusub oo colaadan ku aadan wasiirka difaaca Britain ayaa sheegay in 2 gantaal oo loo tuuray dhinaca jasiiradda Qubrus halkaasi oo ay ku sugan yihiin kumanaan askari oo British ah isla markaana gantaalo iyo drones Iiraan leedahay ay ku dhaceen meel 100 mitir u jirta askarta Britain ee saldhigga ku leh Bahrain. war kale oo colaadan ee bariga dhexe la xiriira wasiirka arrimaha ee iskaashiga caalamiga ah ee Imaaraadka ayaa telefishinka CNN waxa uu sheegay in Imaaraadku aysan indhaha ka qabsan doonin weerarada gantaalada Iiraan ee ku soconaya isla markaana ay qaadi karto Imaaraadka talaabo adag haddii weeraradu ay noqdaan kuwa ku sii socda. imikana Moscow farcelintii ugu horeysay ee caalamiga ee la xiriirta dilka hogaamiyihii sare ee dalka Iiraan Ayatollah Ali Khamenei madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa tacsi ka diray geeridaasi isagoo u diray madaxweynaha Iiraan waxaana fariintaasi uu ku sheegay in dilka hogaamiyaha sare Ali Khamenei iyo qoyskiisa uu yahay xadgudub cad oo ka dhana anshaxa bini'aadantinimada iyo qawaaniinta caalamiga wuxuu sheegay in Khamenei lagu xasuusan doono Ruushka inuu ahaa hogaamiye weyn oo sare u qaaday xiriirka istiraatiijiga ah ee Ruushka iyo Iiraan.
isla war kale oo falcelin ah lala xiriira dagaalkan holcinaya gobolka bariga dhexe kuuriyada waqooyi ayaa weerarada maraykanka iyo israa'iil ee ka dhanka ah iiraan ku tilmaamtay gardarro sharci darro ah isla markaana inuu yahay mid jebinaya madax banaanida qaran sida uu sheegay afhayeenka u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi. وهجاج haddaba wararkii ugu dambeeyay haddii aynu eegno dhanka Israa'iil waxaa lagu soo waramayaa weerarkii gordhowta ka dhacay deegaanka Beit Shamesh in dhimashadu hadda ay marayso 8 qof dhinaca kale seeriga digniinta ka bixiya gantaalada ayaa laga maqlayaa gees kasta oo ka mid ah Israa'iil dadka ayaa lagu wargeliyay in ay ku sii jiraan goobaha gabaadka looga galo gantaalada waxaana ay u muuqataa Iiraan hadda inay adeegsanayso gantaalada kuwa xoogan ee guuxooda ka dheereeya dhanka Iiraan haddii aynu eegno waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay in masaajidka ama goobta lagu magacaabo Imam Riza ee u barakaysan Shiicada in laga taagay calanka madow ee murugada iyo argoosiga dad aad u fara badan oo kumanayaal kun ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalooyin kala duwan oo ka mid ah waddanka Iiraan xitaa magaalada Tehran oo la duqeynayo ayaa dad aad u fara badan isugu soo baxeen magaalada Shiraz ayaa sidoo kale boqolaal kun oo qof ay isugu soo banaan baxeen kuwaasi oo si weyn u dhaleelaya dilka hogaamiyihiisa tilaabadan calanka madow looga taagay goobta barakaysan ee Shiicada u barakaysan ee Imam Riza ayaa lagu macnaynayaa inay tahay mid xaaladda dagaalka wax ka bedeli karta oo u muuqanaysa Iiraan in ay aargudasho wado. waa hagaag daawadayaal goordhow waxaan u gudbaynaa mawliid oo aan wax ka weydiin doono waxa khibrada ay ka tiri xaaladahan lagu jiro dagaalka socda oo laga cabsi qabo inay ku soo biiraan dhinacyo kale iyo waliba qodobo kale laakiin markan waxaan u gudbaynaa warbixin ku saabsan waxa uu ka macno yahay dilka hogaamiyaha sare ee Iiraan Cali Khamenei warbixintan waxaa soo jeedinaya oo inoo haya wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh پدر مهربان امت رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران geerida hogaamiyaha sare ee Iiraan Cali Khamenei laga yaabay in aysan micnaheedu ahayn burburka nidaamka siyaasadeed ee dalka balse waxa ay diraysaa fariin muujinaysa in Iiraan aysan awoodin inay ilaaliso hogaamiyaasheeda ugu sareeya waxaana ay xitaa ay tilmaamaysaa jiritaanka hanaan qarsoon oo lagu dabagalo hogaamiyaasha sare sida ay sheegeen qobaradu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku dhawaaqay dilka Khamenei saacadihii hore ee howlgal military oo dalkiisu uu bilaabay isaga oo kaashanaya Israa'iil subaxnimadii Sabtida warbaahinta Israa'iil ayaa soo warisay geerida hogaamiyaha sare ee Iiraan ka hor ku dhawaaqista Donald Trump waxaana ay soo xigatay saraakiil sare oo sheegay in la dilay isaga iyo hogaamiyaal sare oo ka tirsan Iiraan weerarkii ugu horeeyay ee dhacay dilka Khamenei waxa uu dhalinayaa su'aalo culus oo ku saabsan sida Mareykanka iyo Israa'iil ay ugu suurta gashay inay helaan oo bartilmaameedsadaan inkastoo uu yahay shakhsi ugu mudan ilaalinta sida ay sheegeen qobarada militariga oo uu kamid yahay General Hassan Chuni Trump waxa uu cadeeyay in Khamenei ee dhammaan hogaamiyaasha Iiraan midkoodna uusan ka baxsan karinin sida uu hadalka u dhigay adeegyada sirdoonka Mareykanka iyo nidaamyada dabagalka aadka u horumarsan ee dalkooda dilka Khamenei waxa uu ka turjumayaa sareynta weyn ee Mareykanka ee ururinta xogta sirdoonka sida uu sheegay Chuni oo ka qayb qaadanaya falanqeyn uu sameeyay telefishinka Al Jazeera generaalka ayaa xusay in waxa ka dhacay Iiraan ay la mid yihiin waxa ka dhacay oo weli ka socda Xisbullahida dalka Lubnaan oo lumisay hogaamiyaal badan oo weeraro aad u sax ah oo sare lagu dilay howlgaladan ma suurta galeen haddii aysan ka qayb qaadan lahayn bini aadam sababtoo ah hogaamiyaha sare ee Iiraan waxa uu qaaday dhammaan tallaabooyinka amni maadaama uu ahaa bartilmaameedka koobaad ee Mareykanka balse dilkiisu waxa uu xaqiijinayaa jiritaanka hanaan aan la garanaynin oo lagu ogaado hogaamiyaasha muhiimka ah sida uu sheegay Chuni inkasta oo la qaaday taxadar badan iyo ka fogaanshiyo dhameystiran oo laga sameeyay tiknoolajiyada la dabagali karo haddana Mareykanka iyo Israa'iil waxa ay weli gaari karaan taliyaasha taasi oo muujinaysa qatar weyn Khamenei ma ahan hogaamiye military balse dilkiisu waxa uu dhalinayaa su'aalo ku saabsan inta ay Iiraaniyiintu sii wadi karaan howlgalka military sida uu sheegay Hassan Chuni isbedel taariikhi ah
دكتور محجوب السويري oo ah qabiir arrimaha siyaasadda bariga dhexe ah oo isna ka qayb qaadanaya falaqaynta telefishinka Al Jazeera ayaa waxa uu sheegay in dalka Qomani uu ka dhigan yahay jarista madaxa siyaasadeed iyo diimeed ee dawladnimada waxaana uu dhalinayaa su'aalo ku saabsan awoodda hay'adaha amniga iyo militariga Iran ee ilaalinta hogaamiyaasha sare sida uu sheegay isaga oo tilmaamay in tani ay tahay isbedel weyn oo taariikheed oo ku yimid Jamhuuriyadda Islaamiga ah habka lagu bedelayo Qomani ma ahan dastuur ahaan mid adag balse waxa ay muujinaysaa tabardarrada Iran ee ku aadan ilaalinta ninkan muddo bila ah la filayay in la dilo sida uu sheegay Suwere haddii Mareykanka iyo Israa'iil ay ku guuleysteen in ay dilaan hogaamiyaha sare saacadihii ugu horeeyay ee iska horimaadka tani waxa ay keenaysaa su'aalo ku saabsan masiirka hogaamiyaasha kale sida uu sheegay Suwere isaga oo tilmaamay in dilka Qomani uu saameyn weyn oo ku yeelan karo muslimiinta Shiicada oo dunida oo dhana waxa uu hogaaminaya dalka muddo 36 sano ah waxaana uu la soo shaqeeyay 6 madaxweyne oo kala dambeysay intii uu xilka hayay waxaana uu goobjoog u ahaa caqabadihii ugu adkaa ee Iran ay wajahday 10 sano ee la soo dhaafay taasi oo ka dhigaysa shakhsi muhiim ah siyaasad ahaan iyo diin ahaanba sida uu sheegay qabiirka arrimaha bariga dhexe si kastaba ha ahaatee Suwere waxa uu aaminsan yahay in ku dhawaaqista guusha ee Mareykanka ay tahay mid degdeg ah sababtoo ah awoodda Iran ee ay dib isugu abaabuli karto kadib geerida hogaamiyaha sare waxa ay ka dhigan tahay in laga hadlayo guul muuqaal oo kali ah دكتور ليقي مكي oo ah cilmi baaris sare oo ka tirsan xarunta daraasaadka Al Jazeera ayaa waxa uu sheegay in maqnaanshiyaha hogaamiyaha sare uu dirayo fariimo muujinaya daciifnimada nidaamka maadaama sheekada Mareykanka iyo Israa'iil ay sheegan karaan ay tahay in ku dhawaada dhammaan taliskii amniga lagu burburiyay hal saacadood gudahood taasi waxa ay siin kartaa mudaharaadayaasha fursad ay wadooyinka ay ugu soo baxaan laakiin geerida hogaamiyaha sare macnaheedu ma ahan burburka nidaamka siyaasadeed ama luminta madax banaanida Iran sida uu sheegay Karim Sassani oo horey u ahaa kaaliye madaxweyne ku xigeenka Iran sababtoo ah arrimahaasi waxa ay go'aamin kara oo ka dambaysa qaadanayna go'aankaasi shacabka Iran isaga oo leh Trump ma ahan Sassani ayaa waxa uu yiri jiritaanka Iran kuma xirna hal qof xitaa hadii uu aad u muhiim yahay waxaana ay leedahay hanaan ay ku sii jiri karto hadii la dilo hogaamiyaha sare Maxamed Cabdiraxmaan HBN waa tahay aad buu mahadsan yahay Maxamed Mawlid aynu sii ambaqaadna halkaasi Iran waxay xaqiijisay dilka hogaamiyaheedii sare haddaba maxaa xiga sidee loo bedeli doonaa waa ayase qofka loo badinayo in uu bedelo hogaamiyaha sare ee Iran nimca runtii marka laga hadlayo in la bedelo hogaamiyaha sare ee Iran ma ahan arrin si degdeg ah ku dhici karta laakiin waxa muuqanaysa in markii horeba la diyaariyay nidaam wadanka ku sii shaqayn karo hadii la beegsado arrinta xiisaha leh waxa weeyaan mid kamid ah taliyaasha sarsare ee wadanka Iran oo la wareystay ayaa wuxuu sheegay in hogaamiyaha sare xitaa uu diiday goobtii lagu dilay inuu ka tago dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay wuxuuna ku celcelinayay waxaan doonayaa inaan shahiido waa sida laga soo xigtay taliye sare oo ka tirsan ciidamada wadankaasi Iran marka laga hadlayo yaa bedeli doona intaanan u imaanin waxaan jecelahay marka hore horta inaan sharaxno 3 qof oo hadda hogaanka wadanka gacanta ku haysa madaxweynaha Mas'uud Pezeshkian dastuurka wadanka Iran qodobkiisa 111 ayaa horta waxa uu dhigayaa inuu yahay madaxweynihii laakiin ma ahan macnaheeda in uu maamulayo wadanka oo idil maxaa yeelay hogaamiyaha sare ayaa ah ninka maamulaya wadanka oo idil gaar ahaan xagga ciidamada dhanka garsoorka iyo go'aan kasta xitaa madaxweynaha marka la doorto oo dadku ay doortaan ka soo qaad 40 milyan 50 milyan oo 90 milyan ee Iiraaniyiinta ah haday doortaan madaxweynaha waxa looga baahan yahay inuu ansixiyo hogaamiyaha sare marka awooddaas buu leeyahay marka Ali Khamri markuu meesha ka baxay waxa la xaqiijiyay in la dhisay golo 3 qof ka kooban golahani marka mid kamid ah waa Mas'uud Pezeshkian sida aan sheegay waxa kaloo kamid ah Khulam Hussein Mozaneji oo ah gudoomiyaha garsoorka waxa kaloo isna ku jira oo laakiin aan la filayn Ali Riisa Arafi nin la yiraahdo oo kamid ah culimada sarsare gaar ahaan golaha ilaalada saddexdaas nin waa saddexda nin ee hadda wadanka maamulaya Ali Riisa Arafi sababta loogu diran waxa la aaminsan yahay inay tahay waa nin ay ka dambeeyaan ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga
madaxweynaha waa la ogsoon yahay Mas'uud Pezeshkian waa nin madaxweyne ah laakiin waxa inta badan lagu tiriyaa inuu yahay nin qunyar socda sidaas darteed ayaa markaa Cali Riisa loogu daray yaa bedeli doona marka la yiraahdo Cali Khamenei way adag tahay in hadda la sheego laakiin caadiyan marka hogaamiyaha sare uu dhinto ama la dilo ama xilka uu gudan waayo waxa wadanka ka jira gole la yiraahdo golaha qubarada oo 88 xubnood ka kooban golahaas ayaa doorta qofka noqonaya hogaamiyaha sare Iran ma ahan oo kaliya wadanka Iran inuu maamulayo caadiyan shiicada waxay qabaan in hogaamiyaha sare uu yahay hogaamiyaha ruuxiga ah waxaana ay ku tilmaamaan inuu yahay nin markaasi lagu tirin karo in uu bedeli karaba sida hadalka ay u dhigayaan ilaa uu yimaado mahdigi waa sida shiicadu ay aaminsan tahay marka hogaamiyaha sare ma ahan oo kaliya nin xagga laga eegi karo siyaasadda waa nin matalaya bulshada shiicada meel walba adduunka ka joogto marka dadka ilaa hadda carabka lagu dhuftay haddii aynu eegno waxaa ka mid ah Mujtaba Khamenei waa wiil uu dhalay Cali Khamenei hogaamiyihii la dilay hadda xil sare ma hayo laakiin xiriir adag ayuu leeyahay ciidamada IRGC ninkan hadda aynu ka hadlaynay Cali Riisa Carafi agaasimaha dugsiyada diinta weeyaan isagana waxaa laga yaabaa in markaasi la doorto waxaa kaloo ka mid ah Mohammed Mahdi Marbakhari waa mid ka mid ah culimada udubdhaxaadka u ah Iran waana hogaamiye muhiim oo ka tirsan jabhadda xasiloonida kacaanka islaamiga ah ninka kale waxaa la filan karaa inuu noqonayo Ghulam Hussein Mohsen Echi waa gudoomiyaha garsoorka tan iyo 2021 ayuu xilkan hayay waa nin aad iyo aad ugu dhawaa hogaamiyaha sare qofka kalena waa Hassan Khomeini waxa awoow u ah hogaamiyihii hore ee wadanka Iran Ayatollah Ali Khamenei waa shakhsi lagu tiriyo dadka isbedel doonka inkastoo laakiin aysan suurtagal ahayn isaga in la doorto sababta waxa loo arki karaa isaga iyo wiilka Cali Khamenei ba in ay dhaxal noqonayso marka lixdaas qofna waxa loo badinayaa midkood inuu bedelo waa gartay wararkayaga waxa ku jirtay Mawlid in Britain ay sheegtay in 2 gantaal ay ku soo dhaceen agaarka saldhigga ay ku leeyihiin jasiiradda Qubrus haddaba ma la oran karaa xaaladan faraha ay ka sii baxaysaa oo dhinacyo kale ayaa laga yaabaa inay ku soo biiraan dirirtan iyo dagaalkan holcinaya bariga dhexe waa suurtagal waxa ka sii horeeyay ra'iisul wasaaraha wadanka Britain Keir Starmer oo isagu quddiisa yiri diyaaradaha iyagu gobolka bariga dhexe hawadiisa ku jiraan sabab difaac waxaana uu sheegay in aysan ka qayb qaadan weerarkii lagu qaaday Iran laakiin hadalkan ka soo yeeray wasiirkan ka tirsan xukuumadda Britain waxa loo fasiranayaa qiil wadamada NATO oo Britain ay ugu horeyso in dagaalkan ay ku biiri doonaan walow Faransiiska aan la filayn laakiin Britain waxa leeyahay suurtagal waxa inay ku biirto warkan ku saabsan in 2 gantaal ay ku dhaceen agagaarka saldhig Ingiriiska ay ku leeyihiin Qubrusna xaaladda ayay uga sadari kartaa inkastoo ilaa hadda aysan jirin cid madax banaan oo xaqiijinaysa warkan ama dhanka Iran inay u gudbeen xaggaas iyo Qubrusna lama cadeyn karo laakiin wax walba way dhici karaan xitaa waxa dhici karta mu'aamarado inay dhici karaan oo la doonayo dhinacyo kala duwan dagaalka inay soo galaan xilligan oo kale marka waxa dhacday in iska faa'iideysto dhacdooyin kalena way jireen caalamka soo maray gaar ahaan bariga dhexe gaar ahaan dagaalkii Carabta iyo Israa'iil xitaa hadda ka hor waxa jiray markab Mareykanku uu leeyahay oo markab dagaal in Israa'iil ay dooqaysay dagaaladii hore ee Carabta si dagaalka Mareykanka loogu sii riixo marka wax kasta ayaa dhici kara laakiin calaamadan waxay u muuqataa calaamad dagaalku inuu balaaranaya waa tahay fariinta kale ee Imaaraadka ka timid ee ah inaysan gacmaha ka laaban doonin duqeynta Iran ay ku hayso dalkooda ma la oran karaa waa calaamad muujinaysa in dagaalka iyagu ku soo biirayaan dhinaca kale bal waxaad inoo sharaxdaa waxay ka dhigan tahay in Iran ay duqeyso ugu yaraan 6 dal oo Carabeed marka laga reebo Israa'iil su'aashaada laba qayb ka kooban tahay nimca marka qaybta koowaad Imaaraadka hadii aan eegno Imaaraadka runtii si xun baa loo duqeynayaa waxay sheegeen in ay la ka hortageen ama ay wajaheen ilaa iyo 167 gantaal iyo tobaneeyo diyaaradaha droniska magaalooyinka Imaaraadka ugu waaweyn ayaa la duqeynayaa garoomadii diyaaradaha Imaaraadka oo idil way xiran yihiin inkastoo gobolka oo dhan ay xiran yihiin garoomadii diyaaradaha sawirkan hadda inoo muuqda waa garoonka magaalada Abu Dhabi oo duqeyn culus ay ku dhacday Imaaraadka marka
suurtagal waxa weeyaan in dagaalkan ay ku biiraan imaaraadku Israa'iil xiriir fiican buu leeyahay Iiraanna inkastoo colaad weyn aysan ka dhaxayn laakiin haddana waxaa jira jasiirado laga haysto imaaraadka carabta jasiiradaha Abu Musa la yiraahdo oo imaaraadka laga qabsaday oo Iiraan xoog ay ku haysato xurguftaas iyadoo jirtay iyo Iiraan oo si gaar ah u duqeynaysa imaaraadka carabta waa suurtagal in imaaraadku dagaalka ay ku biiraan laakiin Israa'iil way uga sokaysaa imaaraadka qasaaraha ku sii kordhi kara dagaalka haddii ay ku biiraan labada wadan ee hadda bariga dhexe ku yaal oo Israa'iil marka laga tago aadka loo duqeynayo waa imaaraadka iyo Qatar waliba imaaraadka inkastoo Bahrain laftigeeda si fiican loo duqeeyay marka duqeynta ayaa ku siyaadi karta imaaraadka markaad eegto qariirada wuxuu ku yaalaa gacanka Hormuus meel kamid ah marka waxay u muuqataa Iiraan inay u sahlan tahay in imaaraadka aad ay duqeyso laakiin waa suurtagal dagaalka inay ku biirto su'aashaada qaybteeda kale haddii aan jaleeco Iiraan markeedii horeba wadamadan carabta Mareykanka waxay ka dhaadhiciyeen inay tahay cadow tani wixii ka dambeeyay dagaalkii Ciraaq iyo Iiraan wadamadan sababta ay ciidamada Mareykanka ugu yaalaan saldhigyada waa cabsi laga qabo Iiraan oo wadan kasta oo ku yaala wadamadan Khaliijka iyo bariga dhaxba cabsi waxay ka qabeen Iiraan marka muddooyinka ugu dambeeyay waa isku soo dhawaaday wadamadan xiriir fiican bay samaysteen Qatar oo kale aad bay iskugu fiicnaayeen Sacuudiga oo kale heshiis Shiinuhu ka shaqeeyay ayaa dhex maray 2023 laakiin arrinta hadda way isbedeshay inkastoo aysan waxba reeban doonin Iiraan oo ay leedahay waxba reeban mayno laakiin marka laga hadlayo gobolka Iiraan way sii kala fogaanayaan waxaana sii muuqanaysa in Mareykanka ay u sii dhawaadaan wadamadan carabta sababtuna ay tahay waxaan imika la arkay ee dhacaya Qatar oo kale Iiraan aad bay iskugu dhawaayeen dhinacaas marka la eego Iiraan dhibaato ku imaan karta laakiin Iiraan ujeedada ay ka leedahay arrintan waxa weeye in qayladu ay kororto dhaqaalihii oo curiyaamo waxa hadda suurtagal ah waxaan daawanaya goor dhawaatay nin khabiir ah oo reer Iiraan ah oo laga wareysanaya magaalada Tehran wuxuu yiri suurtagal waxa ah in ceelasha shidaalka hadda lagu bilaabo duqeynta hadda waxa la duqeynaya waa garoomada sababta garoomada loo duqeynayana waxa weeyaan in xanuunka lagu sii badiyo hogaamiyaasha carabta iyo wadamada Khaliijka Iiraan iyada waxay leedahay wadamadan waxay martigeliyaan saldhigyo military bay hoy u yihiin oo Mareykanku u leeyahay marka nooma kala socna saldhigyada militariga iyo goobaha kale waxa kaloo laga yaabaa inay qiil u samaysanayso xarumahan inay ku sugan yihiin dad sirdoonka ka tirsan sida halka ay u dhigayaan qaar kamid ah warbaahinta wadanka Iiraan arrinta marka ugu muhiimsan waxa weeyaan oo ubuucda jawaabta su'aashaada Iiraan way si kala fogaan doonaan wadamada gobolka waxaan dhici doona shir ay yeelan doonaan golaha la yiraahdo GCC wixii ka soo baxana dabcan waynu arki doonaa guud ahaanba waxaa intaasi ku eeg maanta barnaamijka wararka maanta oo halkan ay si wada jir ah idinkaga soo wada tabinayeen anagoo kale ah Waliid Xaaji Cabdi iyo Nimcati Macade si aad u hesho wararka iyo barnaamijyadeena haddii aad ku cusub tahay ama baadan hore ugu xirnayn baraheena bulshada hadda ku soo biir tan iyo intaanu dib ugu kulmi doono barnaamij midkan lacayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad